adigoo la sheekaysanaya xaaladaha dunida. Welibana waxaa si fiican in aad si foolka fool ah aad ula kulanto. Reebo shilalka gaariyaasha in lagu dhinto maxay tahay sababta labaad oo ugu weyn ee ay u dhintaan dadka guud ahaan dunida. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركالة إيو جنالكا عبدي إيد نتورك أو أنو كسو قد بنا وحيالها عن إسلام هاي وحي أنفعيان أمد الصوماليات. هدبا وحنقو عن صدي إن مالي والبو أو تلادة عن كسو قد بيو جنالكا هدي إلى هاي إدمو برنامج ليراهو برنامج كا مالي والبو أو تلادة أو ليراه برنامج كمقعي سوا تلادو iyo tilmaamaha caafimaadka. Talaado tilmaamaha iyo talooyin caafimaad. Waxaan uga hadli doonaa qaybaha kala duwan oo caafimaadka annaka oo soo qaadan doona talooyin iyo tusaalooyin caawinaya qofka Soomaaliga ah in uu caafimaadkiisa u kor u qaado ama uu iska jiro. Ilaahay baa jiri kare waxyaalaha xanuunada u keena dadka da' walbaba ha ahaadeen. haddaba maanta annakoo si tartiiba u bilaabayna barnaamijkeegan oo aanu ka soo xigan doono joornaalada caalamka ugu waaweyn oo ka hadla caafimaadka waxaanu ku bilaabaynaa 10 ficil oo haddaad samayso caafimaadkaaga kor u qaadaya. 10ka ficil ma baahna inaad geliso waqti badan. anigoon hadalka ku soo daahayn waxaan rabaa midka koowaad inaan idiin sheego oo ah in aad maalin walba samayso socodkaasoo ilaa 10 iyo ilaa 20 ilaa 30 daqiiqo ah. sidoo kalena aad stretching aad samayso oo ah inaad jirkaaga kala bixiso 20 ilaa 30 daqiiqo. sidoo kalena aad jirkaaga kala bixiso. sidoo kalena haddii aad hesho jaranjar ama gurigaaga ha ku dhex taallo ama bannaan meel ah hataa leh in aad jaranjartaas fuusho oo aad iska ilaaliso inaad wiish raacdo inta badan maalintii. arrimahaasi waxay kor u qaadayaan inuu moodkaagu fiicnaado, maalintaaduna ay wanaagsanaato, shaybkaaguna uu shayb fiican noqdo. talada labaad waxa weeye inaad cunto cuntooyinka la yidhaaho whole foods. waa cuntada galka leh noocay doontaba ha ahaatee, cuntada galka leh sida digirta, misirta, sarreenka, quinoa bahasha la yidhaahdo oo kale, chia seedska. whole foods youtube-ka ku qor, fiiri waxay yihiin, cuntooyinka whole foodska. sidoo kale waxaad cuntaa vegetable-ka iyo fruitska. sidoo kale proteinka la yidhaaho lean proteinka iyo healthy fatska. waxaad iska ilaalisaa cuntooyinka ultra processedka la yidhaahdo oo ah sida hamburgerka, kabaabka, chicken iyo chipska. waxyaalahaasoo dhan waxay khatar ku yihiin caafimaadkaaga. waxaad rabaa cuntada aad cunayso oo bayska ku ah inay tahay cuntada whole foodska, aysan ahayn cuntada ultra processedka la yidhaahdo. talada saddexaad waxa weeye in aad hurdadaada aad saarto culayska. habeen walbana aad isku daydo inaad seexato 7 ilaa 9 saacadood. sababtoo ah hurdada xumi waxay effect garaysataa difaaca jirkaaga, waxayna beddeshaa moodkaaga. sidoo kalena waxay kaliftaa inuu kor u kaco culayskaaga. talada afraad in aad biyo badan cabto. biyaha badan oo la cabo wuxuu support gareeyaa digestingka, inaad calooshaadu ay socoto.
blood circulationka sidaa la adligeed maalintii dhakhaatiirtu waxay ku taliyaan inaad cabto ilaa 2 litir oo biyo ah. talada shanaad waxa weeye inaad manage garayso stresska, aadna samayso waxa la yidhaahdo breath exercise oo ah inaad neefsato. breath exercisekaas waxaa la yidhaahdaa 4 in 2 out. waxaadna samaynaysaa, waxaad tirinaysaa 1 2 3 ilaa 4 markii aad neefta qaadanayso sidan, kadibna waad neefsanaysaa ilaa 2 jeer intaad ku odhanayso 2. waa talada shanaad. taas waxay kuu sakiraysaa in blood circulationka maskaxdaadu ay furfuranto oo si fiican u shaqeeyo, qalbigaaguna uu noqdo mid jooga meeshii marka hore aad ka ahayd qof xawilan. talada lixaad waxa weeye in aad yarayso cunista sokorta, sababtoo ah waxay khatar ku tahay beerkaaga, waxayna hawada u qaadaysaa blood sugarkaaga. sidoo kale waxay imbakti garaysaa sokortu moodkaaga iyo welibana enerjiga aad adigu leedahay. qof energy badan ma noqonaysid, qof dabeecad fiicanna ma noqonaysid. moodku waa dabeecadda ama sida aad dareemayso farxad, naxsanaan, xanaaq, waxyaalahaasa moodka la yidhaahdo. marka qofku markuu moodkiisu fiican yahay waa qof faraxsan, markuu moodkiisu xun yahayna waa qof xun. talada toddobaad waxa weeye in aad samayso exercise ah nooca strength training la yidhaaho 2 jeer usbuucii, oo ah inaad biro qaado. birahaas waxay noqon karaan wax walba oo guriga ku yaallo, ma ahan inay bir tahay. haddii ay ku yaallo 2 caag oo 4 litir qaada, biyo ka buuxi, korna u qaad, waxaad samaynaysaa strength training. taasi waxay kaa caawinaysaa inay murqahaagu joogaan, sidoo kalena aysan lafahaagu noqon kuwa jilicsan. sidoo kale socodka calooshaada ayay wax fiican u taraysaa. talada 8aad oo maanta aan soo qaadanayno waxa weeyaan inaad ilaaliso your postureka waxa weeye qofka qaab dhismeedkiisa. haddii aad fadhido maanta dhan waad isku dhex dhacaysaa, waxaadna noqonaysaa qof isku jira oo laalaada. si aad posturkaaga u habayso ama u ahaado mid saxan, waxaad samaynaysaa haddaad tahay qof inta badan fadhiya in aad movement samayso, kana qaadato break fadhiga badan. talada 9aad waxa weeye inaad maalin walba hesho in qorax ah intay doontaba ha ahaatee, iyo welibana dabayl caafimaad qabta, taasoo ah inaad bannaanka u baxdo, dhexna qaado duurduur hadduu kuu dhow yahay, sababtoo ah taasi waxay boosti garaysaa caafimaadka. sidoo kale vitamin D ayaad ka helaysaa qoraxda, waxayna regulate garaynaysaa ama ay balansi u yeelaysaa ritmiga noloshaada ama jirkaaga. talada 10aad oo aan idinla socodsiinaya waxa weeye in aad noqoto qof social ah, oo aad la xiriirto, aad xiriir la samayso dadka kuwa hareeraysan, oo aadan guri isku soo xirin. inaad ugu yaraan qof ama 2 qof la hadasho maalintii, adigoo la sheekaysanaya xaaladaha dunida. welibana waxaa sii fiican in aad si foolka fool ah aad ula kulanto qofka. haddaba maantay barnaamijkeennii talaado iyo tusaalaynta iyo tilmaamaha caafimaadka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. tan iyo intaan dib dambe u kulmi doono haddii ilaahay yidhaahdo talaadada dambe, waxaan idinkaga tegayaa su-aal ah, marka laga reebo dhimashada maxay tahay marka laga reebo shilalka gaariyaasha in lagu dhinto, maxay tahay
sababta labaad oo ugu weyn ee ay u dhintaan dadka guud ahaan dunida, aan kugu soo celiyo, marka laga reebo in ay dad badan ku dhintaan shilal baabuur oo ah sababta dhimashooyinka dunida ka dhaca tan ugu horeysa, maxay tahay sababta labaad oo ugu badan oo dadku ay u dhintaan dunidan aan ku noolnahay? qofkii ka soo jawaaba su-aashaasi isbuuca dambe waxaanu halkan ku soo qaadan doonaa magaciisa, annagoo sheegayna in uu ku guulaystay su-aashaas si saxana uga jawaabay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.